إله إلا الله لا إله إلا الله أما تاجر هو أما مقع له أما مسكين هو إن إله الرالي قال سابا قوله إذن قف ولبو قولي سنكره بما عنده من إمكانيات بكو قولي سنكره waxaad haysataa intuu leegyahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaam alcaadil toddobada jannada carsh araxmaan harsanayuu ka mid yahay haddaad nin dhallinyaro oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanaad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guush iyo kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegyahay kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidh la leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo oo daalo muxuu kororsaday waxba ma kororsan soo maaha laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxadada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sano ama 70 sano lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbiga raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedanta inta kadeedan baad ku jirtaa haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa walow aqoontaadu ha yaraato tusaalaan idin siin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhiido yidhi bal ninkaa ka warrama waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erga kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysto bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yacni bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu dankaa yeesho shafeeca kuugu yimaadana waa nin magacio ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu wuu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erga kuugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhaahdeen يعني نبغى حبرة يا صحابة موازين تم هاو حلقوا قيمية بني آدم كسي الله قيمية تنوع حولي لملء هذا من ذاك كا هراء يقول هاي وهو البوية هاي دولك مجيو كاسة نين كان باس كا خير بدل من نبغى وهل نين يدولك مجيو كي كلا ما هل كان نين يدولك مجيو سويدارية وحي سويدارية موازينta wax lagu qiimeynaya kala noocaha waayo dhulka mugiyo naar ku sii socda geedi naareeda faa'iido ma leh xabad jannada u sii socota dhaanta Soomaha hal qof xaga jannada u socda iyo dhulka mugiyo xaga naarta u guuraya tii faa'iido ma leh walidaalك nabigu wuxuu leeyahay dhulka mugi oo kaasa qof quro kaasa dhaama ayuha alahibba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimeyn lahaayeen waxay wax ku qiimeyn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaas maaha wax lagu qiimeeyo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha
mise gaadhu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtaahi yahay taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed ina raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii raacaana jannu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyntahay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxta iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badanta iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa un directionka aad u jeedeen raacaysid ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuus leba ta xagga naartana intaba waa lagu mari karaa